السلام عليكم markale isku soo noqod wanaagsan maanta muuqaalkan waxaan ku sharxi doonaa filim aad u xiiso badan kaas oo lagu magacaabo A Hard Day waxa uu soo baxay sanadii 2014 waxa uu ku bilaabanayaa filimkeena maanta xilli habeenimo ah waxaan halkaan joogaa nin lagu magacaabo Detective Cow waxa uu saaran yahay gaarigiisa waxa uu la hadlayaa walaashiisa waxaana haysta laba dhibaato oo waaweyn waana dhibaato oo san waxba ka qaban karin hooyadiisa way dhimatay waxaana qasab inuu joogo aaska hooyadiisa laakiin waxa uu kaxiyay baabuurkiisa waxa uu u socdaa xafiiskiisa sababtoo ah kooxdiisa baaritaan waxa ku hay askarta maadaama ay laaluush qaateen si kastaba ahaatee waxa uu ku mashquulaya teleefankiisa sababtoo waxa si joogta u soo wacaysa walaashiisa iyo kooxdiisa waxa uu kaxeynaya baabuurkiisa balse si lama filaan waxa uu gaarigii ku dhufanaya nin isagoo ninkii dilay waxa uu joogaa wadada dhexdeeda waxa uu la yaaban yahay wixii uu sameyn lahaa waxa uu arkay gaari booliis oo dhankiis u soo socdo waxa uu meedkii ku qariyay gaarigiisa waxa uu meedkii geliyay dabada dambe ee gaarigiisa waxa uu dhaqaajiyay gaarigii laakiin baxshadiisu waxay ahayd mid gaaban maxaa yeelay waxa uu yimid jagboonti detective Cow ma uusan doonin in la qabto asaga waxa uu askartii u sheegay inuu dambi baari yahay si kastaba ahaatee waxa uu sii wadaa inuu sameeyo marmarsiyo badan isagoo isku diyaarinaya inuu ka baxsado goobtan waxa uu ka soo dayay gaarigii balse saraakiishii kuma kalsoona sheekadiisa sidaas darteed taliyaha ayaa halkaas yimid waxa uu askartii u sheegay inay laba mar hubiyaan gaarigan oo wato nin ka mid ah askartii ayaa isku dayay inuu furo dabada dambe ee gaariga balse waxa meeshaas rabshad iyo dagaal ka bilaabay ninkii Detective Cow ahaa laakiin Detective Cow waa la garaacaya waxaana lagu ridiyaa dhulka balse waxay ogaadeen xaqiiqo ah in ninkan runtii uu yahay nin dambi baare ah waxayna sii dayeen ninkii iyagu aan baarin dhan kale waxa saldhigga booliiska joogay Jo iyo Du manooga in saaxiibkooda uu nin dilay balse waxa halkaas laga helay dhammaan lacagihii laaluushka ahaa oo ay qaateen maadaama ay ayaga askar ahaayeen ninkii madaxdooda waxa uu isku dayay inuu halkaani ka soo daayo nimankaani waxa uu ku andacoonaya inaysan lahayn dambi sidaas u weyn laakiin wakiiladii saldhigga ayaa waxa ay tusiyaan in sidoo kale ay heleen buugaag xasuus qor ah oo ay ku qoran yihiin dhammaan laaluushka ay qaateen sanadihii la soo dhaafay dhanka kale Detective Cow waxa uu go'aansaday inuu laabto aaska hooyadiisa kadib balse waxa soo dhacay wicitaan kaga yimid walaashiisa oo xanaaqsan waxa uu gabadhiisa miyana ku canaananaya inay dhibka ka dhaafto laakiin waxa uu timid asxaabtiisii oo ka soo baxay xabsiga maadaama ay ayaga askar ahaayeen waxayna u sheegeen inuu qaado mas'uuliyadda laaluushka ay ayaga qaateen balse asiga waa uu ka diidayaa inuu mas'uuliyadaasi kaligiisa qaado maxaa yeelay ma ahan qofka asaga laaluushka qaatay waxaana dhexdooda ka dhashay muran siday u murmayaan waxa hadalkii soo gaabisay Detective Cow walaashiisa iyadoo halkaas isaga tagtay balse markaana wuxuu isku dayayaa inuu qorsho dago balse waxa uu baahan yahay markaana inuu booliiska ka soo qaado meedkii uu dilay asaga waliba inta lagu guda jiro hawshaani waxa uu helayaa fariin kaga timid kooxdiisa waxayna u baahan yihiin in ugu yimaado sida ugu dhaqsiyaha badan si ay mishkan u fuliyaan waxa uu soo baxayaa waxa uu hubinayaa baabuurkiisa waxa uu helay qorshihii uu ku gali lahaa qolalka meedka waxa uu qaanad yeeshanaya alaab ka mid ah alaabtii uu ku filin lahaa qorshihiisa markaana waxa uu soo iibsanayaa buufin fara badan dableedna waxa uu yimid banaanka waxaan halkaas joogay mid ka mid ah askarta waxa uu buufinadii ku qariyay kaamir CCTV si aan loo arkin isaga waxa uu askarigii weydiistay inuu daqiiqadaha ugu dambeeyay la joogo meedka hooyadiisa kadibna waxa uu soo xirtay albaabka isagoo gudaha soo galay waxaana u shaqeeyay qorshihiisa waxa uu fooliyaa miis isagoo soo qaadanaya alaabtii uu hadayday meesha gashtay laakiin alaab ayaa ka dhacday waxaana maqashay askari dalkaasi kaaga dhaweed waxayna soo aaday dhankiisa iyadoo u soo dhawaatay waxayna dhagta saaranaysa albaabka waxayna wacday security-ka laakiin kaamirooyinka ma ahan kuwa shaqeynaya waardiyaashii mid ka mid ayaa arkay agaasimaha isagoo weydiinaya furihii lagu furi lahaa qolkii uu soo xirtay Detective Cow waxa uu furayaa sanduuqii waxa uu ku arkayaa seef iyo alaab kale oo ku jirta waxa uu dareemayaa in la soo garaacay albaabka balse dhag dalaq uma siinayo waxa uu xera ku xiriyaa sanduuqii isagoo jiidaya sidaas darteed waxa uu sanduuqii keenaya qolka kale markaana waxa uu dhigaa sanduuqii waxa uu jeebkiisa ku arkayaa inuu hayo teleefankii ninkii uu dilay isaga waxa uu furayaa sanduuqii waxa uu dareemayaa in agaasimaha uu furo soo wato agaasimihii waxa uu soo furay albaabka balse waxa fahiistay oo istoosii ninkii Detective Cow waxa uu iska dhigayaa inuu barooranayo oo ka naxsan yahay dhimashada hooyadiisa kadibna saaxiibkiisa ayaa waxa uu soo wadiyaa gaariga Detective Cow balse ma dareemayo teleefanka dhacaya waana teleefankii ninkii dhintay kadibna waxa la aasay Detective Cow hooyadiisa balse wakiilkooda ayaa ku wargelinaya inay marka koowaad ku guuleysteen qorshahooda balse Detective Cow waxa uu fiirinayaa gaarigiisa waxa uu gaarigiisa si uu la kaca ugu dhufanaya baabuurka askarta waxa uu tusiyaa kaarkiisa isagoo u sheegay inay meel qaldan ku baakimeen baabuurkooda waxa uu ka soo qaadanaya lacag ciimisa waxa uu ku dicatrinaya gaarigiisa isagoo hagaajinaya kadibna waxay daawanayaan bandhigga cusub ee tartanka baabuurta
balse waxaa meeshaasi ka kacay qarax kooxdiina waxay helaysaa kiis cusub weliba waxaa loo baahan yahay in gacan ku-dhiiglaha gacanta lagu soo dhigo laakiin markii waraaqada kiiska uu soo qaaday detective Cow waxa uuna ogaaday dambiilaha in lagu magacaabo Lee balse inuu yahay dambiilahana ninkii uu dilay isaga sidaas darteed waxa uu soo raacay asxaabtiisa si uu mission ula soo fuliyo laakiin waxa uu halkaas ku arkaya eeygi sababtoo ah eeygaana waxa uu sabab u ahaa inuu dilay ninkii waxa uu ogaanayaa meesha uu dilka ama shirka ka dhacay inay u jirto tilaabo gurigii Lee isagoo eegaya wadada si uu hubiyo inuusan ka tagin wax calaamad ah si uu xaqiijiyo inuu ninka isaga dilay waxaana yimid sarkaal lagu magacaabo Jinho waxa uuna baariyaa kiiskii waxaana soo baxday inuu qof arkay markii uu dhacayay shirka waxa uuna qofkaas u yeeriyaa booliiska waxa uuna Jinho u sheegayaa inuu wax fikrada ka haysan qofkaasi balse waxay halkaas ka arkeen Kamil CC taas uu sugan yahay amaankeeda waxaana halkaas yimid detective Cow wakiilkiisa markaana waxay rabaan inay awoodaan inay helaan muuqaalkii Kamil CC-da si ay u awoodaan inay dambiilihii gacanta ugu dhigeen waxay yimaadeen halkii laga maamulayay kaamirada madaxa kooxda ayaa u xil saaray inuu ka shaqeeyo Jo iyo Jinho inay muuqaalada ka shaqeeyaan balse waxaa halkaas ka soo muuqday gaarigii detective Cow isagoo doonaya inuu dabagalo jidkiisa habeenkii dambe waxa uu yimid walaashiisa balse walaashiisa waxay weydiisay miyay u baxayaan safarka dhalashada ee gabadhiisa Mina waxa uu xaqiijiyay inay bixi doonaan oo ay safarkaas gali doonaan maalintii detective Cow isagoo jooga saldhiga waxa uu arkayaa inuu wicitaan kaga yimid marqaati aan la garanaynin kaasoo doonaya inuu warbixin ka siiyo dhimashadii Lee waxa uuna dabagalayaa ninkii isagoo waxaya laakiin ma maqlaya wax cod ah balse mar kale qofkii ayaa ka soo wacay teleefankiisa waxa uuna dhegta saartay teleefankii waxa uuna u soo baxay banaanka isagoo la hadlaya qofkii balse isla markiiba waxa uu arkayaa ninkii soo wacay oo taagan teleefanada banaanka waxa uuna daba cararayaa ninkii balse ninkii waxa uu ka galiyaa gaari isagoo gaarigii wadanaya balse sida uu ceelsanaya waa uu qaban waayay waxa uuna ku soo laabtay xafiiskiisa laakiin ninkii uu raacdeysanaayay daqiiqad yar kadib ninkii ayaaba ku soo noqday shaqadiisa oo waxa uu muujinayaa inuu sidoo kale yahay booliis waana ninkii uu raacdeysanayay detective Cow ninkaani waxa lagu magacaabo Back waxa uuna ahaa ninkii saarnaa gaariga booliiska markii uu detective Cow geysanayay shilka detective Cow markii uu saldhiga ku soo laabtay waxa uu ogaaday in Jo iyo Du ay aadeen buurta daqiiqado yar gudahooda waxa laga soo wacayaa teleefanka saldhiga waxa uuna ku soo celinayaa wicitaanka waxa uuna imaanayaa xafiiskii waxa uuna ugu yimaanayaa Back tana waxay sii socotaa muddo dheer ilaa Back uu dhab ahaantii feersanka ugu dhufto ninkii detective Cow ahaa isla markiiba kooxdii ayaa ka celisay isaga booliiskii kale way ku faraxsan inay arkaan Back sababtoo ah waxa soo baxday inuu asiga ahaa kii dilay ninkii Back waxa uu soo aadayaa musqusha balse detective Cow ayaa ugu daba yimid musqushii waxa uu xiray albaabka baahida haysa Back waa mid sahlan waxa uuna rabaa inuu helo jirkii Lee waxa uuna doonayaa inuu Lee meydkiisa helo labadoodiiba waa laba iska soo horjeeda detective Cow waxa uu doonayaa inuu qariyo meydka halka Back uu doonayo inuu meydkaasi jirkiisa helo markaana waxay bilaabayaan inay dagaalamaan dagaal dheer kadib detective Cow waxa madaxa loogu jibiyay musqusha waxaana looga soo tagay halkaasi habeenkii dambe waxa uu soo qaadanayaa gaarigiisa isagoo aanan doonaynin in la helo jirkii Lee maxaa yeelay waxa ku cadaanaya dembiga wax uuna weli hayaa meydkii waxa uuna satuuqi ka soo saarayaa meydkii Lee waxa uuna baariyaa meydkii waxa uuna calooshiisa ku arkayaa nabaro dhaawaca waxa uuna raadinayaa sababta Back u raadinayo meydkaani waxa uuna baariyaa teleefankiisa waana mid ugu muhiimsan waxa uuna ogaan karaa akhbaar badan kadib teleefankii waxa uu bilaabayaa inuu garaaco isla markiiba waxa uu teleefankii ka maqlayaa cod degniin ah waxa uuna weynayaa wax jawaabo ah waxa uuna baxayaa wax uuna wacayaa Du si uu macluumaad ugu helo ninkaani cidda uu yahay waxa uuna u sheegayaa mid ka mid ah kuwii Lee ku lug lahaa dilkiisa oo jooga meel isaga u dhow sidaas darteed waxa halkaas soo aadiyay Cow waxa uuna go'aansanaya inuu halkaas booqdo isaga balse waxa ogaanaya inay dilkaas ka dambeeyeen asxaabtii taraafikada ahayd waxa uuna arkayaa nin ka mid ah kuwii taraafikada ahayd waxa uuna ceersanayaa ninkii balse ninkaani waxa uu ahaa nin uu garanayo waxa lagu magacaabaa Jo sida uu ceersanayay ninkii waxa uu qabanayaa ninkii waxa uu uga hajabiyaa inuu Jo ka tuuri doono dabaqaani haddii uu wax walba u sheegi waayo isaga Jo waxa uu sharaxayaa Back inuu yahay sarkaal musuqmaasuq wada kaasoo sameeya walxash sharci darro ah waxa uuna iibiyaa maandooriyaha noocyadiisa kala duwan
waxa uuna noqday ciyaaryahan weyn kaasoo ku takhasusay daroogada. dhammaan faa'iidooyinka ka soo gashay halkaasi waxa uu ku kaydiyaa qasnada gaarka ah, laakiinse Lee waa ninkii dhimanayay waxa uu furo ka xaday ninkii baaga isagoo ku qariyay jirkiisa. baag ayaa toogtay ninkii isagoo doonaya inuu furihiisii ka qaato, kadibna detective-ka waxa uu sii daayay ninkii waa uuna soo baxay waxa uuna u yimid meydkii Lee waxa uuna fiirfiirinayaa jirkiisa. waxa uuna isticmaalayaa bir isagoo ku baariyay qalabka birta. mar kale isagoo isticmaalaya bir waxa uu jirkiisa ka heliyaa capsule kaasoo daroogo ka samaysan. si kastaba haatee si lama filaan ah waxaa halkaas ugu soo baxay saaxiibkii Joe ahaa. waxa uuna toosh iyo biskood ku qabanayaa saaxiibkiisa. waxa uuna ku soo xiray gaarigiisa. waxa uuna u sharaxayaa inuu baag yahay midka dilay Lee. kadibna waxa uu ka furay jeebadii uu ku xiray saaxiibkiisa. waxaan u soo dhacay taleefan. waxa uuna ka soo degtay gaarigaasi uu la hadlo ninkii soo wacay, balse ninkaani soo wacay waxa uu ahaa baag. isla markiiba baag waxa uu container ku soo ridayaa ninkii Joe ahaa. waxa uuna taleefanka ugu sheegayaa baag ninkii detective-ka ahaa inuu asaga taleefanka Lee u sameeyay digniin si uu dilo saaxiibkiisa, isagoo xasuusanaya detective-ka inuu rabo jirka ama meydka Lee 6 subaxnimo. isagoo xanaaqsan, detective-ka waxa uu hanjabay ninkii waxa uuna ugu hanjabay inuu dili doono, laakiin midaasi ma samayn karo maxaa yeelay waxa uu joogaa baag gurigiisa. waxaana gurigiisa imaanaya ninkii detective-ka ahaa si uu badbaadiyo gabadhiisa iyo walaashiisa. laakiin markii uu yimid gurigii baag mar hore ayuuba ka tagay gurigiisa. hadda maahan inuu isdhiibo maxaa yeelay haddii uu isdhiibo waxa uu waynayaa qoyskiisa. laakiin detective-ka waxa uu la yimid qorshe ka duwan kii baag kadib markii uu sheegay walaashiisa inay u baxdo safarka dhalashada gabadhiisa isaga la'aantiisa. laakiin asaga waxa uu ku soo laabanayaa saldhigga si uu helo rasaas badan si uu ogaado waxyaabaha qarxa. waxa uuna jirkiisa gelinayaa meydkii. subaxdiina waxa uu la kulmayaa ninkii baaga si ugu dhiiba meydkii. baag waxa uu ninkii ka qaaday biskooladiisa isagoo ka daadiyay rasaastii. waxa uuna dusha ka saarayaa biskoolad, balse waxa uu adeegsanayaa qalabka u sheegaya birta macdanta ah. balse baag waxa uu maleynayaa inuu furaha uusan ku jirin jirkiisa. detective-ka waa uu soo baxaya waxaana soo tooganaya ninkii baag ahaa. waxa uuna sujuudda kaga qabanayaa biskooladii, balse waxa uu ku leeyahay dil haddii aad rabto. waxa uuna u sheegayaa been. waxa uuna ogolaaday inuu baxo. isla markii uu baxayba waxaa hal mar qarxay baabuurkii waxaana burburay baabuurkii. detective-ka waxa uu la soo baxayaa biskooladiisa isagoo fiirinaya biyaha. dhowr daqiiqadood gudahooda waxa uu hubanayaa inuu baag dhintay. waxa uuna soo aadayaa gurigiisa isagoo u maleynaya inay wax walba rabshad ah dhammaadeen. waxa uuna iska dhigaa biskooladii. waxa uuna diyaarsanayaa boorsidiisa isagoo isku diyaarinaya inuu ku biiro qoyskiisa. si kastaba haatee markuu u dhow yahay inuu baxo, baag ayaa soo baxay. waxa uuna soo weeraray isaga. naf adkaa ninkaana miyuu weli nool yahay? labadoodaba waxay bilaabeen inay dagaalamaan. detective-ka waxa uu ordayaa qolka jiifka isagoo soo xiranaya albaabka, balse baag ayaa soo jibinaya albaabkii. waxayna ugu dambeyntii ku wada dhaceen musqusha, balse ugu dambeyntii waxaa laga takhalusay ninkii baag ahaa. balse waxaa goobta yimid askar waxayna go'aansadeen inuu is casilo ninkii detective-ka ahaa si uu waqti badan ula qaato qoyskiisa. walaashiisna markasta waxay rabtay inay si wadajir ah waqti u wada qaataan. waxayna qabaqaabanayaan aaska saxda ah ee hooyadiisa. si fiican bay u socotaa aaska hooyadiisa. waxa uuna dhulka ka helayaa capsule isagoo markaasi helay Lee waxa u qarsan iyo kaarkiisa bangiga. detective-ka waxa uu yimaadayaa bangiga gaarka loo leeyahay si uu u isticmaalo kaarkii. waxa uuna haystaa furihii qasnada. waxa uuna furayaa qasnadii. waxa uuna halkaasi ka helayaa malaayiin lacag ah. filimkiina halkaas ayuu noogu dhammaaday. inta muuqaalka mid ka xiiso badan kulmi doono, sidaas iyo nabadiino.